بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال وشوقي قاد هيا إذا كجا إيمانية استوديو هيا مقالة لندن وحيد الله سعودسينية أنا جو عبد الواحد عبد الله خليف وحا إسكوسو دبردي أستاذ محي الدين ديري النور ودني ومالنا حدا سومالي هاد سبتي سنين باسوق ليسا عاد جيسك أفريقيا بري وقياستي sagaalkii iyo soddon iyo kow daqiiqo waxa caawa martinoo ah taliye ku-xigeenkii hore ee nisa yani hay-adda sirdoonka iyo nabadgelyada soomaaliyeed ismaaciil daahir cusmaan soo dhow ismaaciil waa dhawahay cabdiwaxid waa mahadsantahay adiga iyo dhegeystayaasha iyo daawadayaasha waa islaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum salaam waraxmatullah aad baad u mahadsan tahay daawadayaal gaar haye waa golahaas gacalka soomaaliyeed gees kasta way adduunka ka joogaan u gudboon yihiin dowladda guna kama qaadano gacan saarna lama lihin mucaaradka cid gooni ahna uma adeegno fikirka waa lagu kala gedsinaan karaa laakiin danta guud waa mid gooriya ayaan gabagabada hadalku waa sidii gujis allah u naxariistee u lahaa aan kuu garawnaya gaar hayow geyiga ilaali maadaama nabadgelyadii soomaaliya guud ahaan iyo tii gobolka banaadir ay baryahan khatar gashay waxaan baryahan xoogga saarnay oo aan idiin soo xulnaa soona wadnaa taliyaashii yani hay-adda nisa iyo ciidamada qalabkiisida oo kale iyo xildhibaanadii joogay hadde magaalo madaxda ayagaan baryahan idiin soo badinaynaa maantana wakaas ismaaciil baa marti noo ah isgaarsiiya sheergareeya ismaaciil waxaan ku xasuusinayaa saad og tahay tan iyo dagaalkii sokeeye kadib dowladdan nabad iyo nolol waa tii dadkii ugu badnaa u hambaliyeeyeen markii la doortay madaxweyne farmaajo yacni sidaad hadda la socotidna madaxweynaha aad baa loo fadhoweeyey marka dowladda markii la doortayba waxaad maqlaysaa madaxa waxay isla galeen yani ganacsatadii ayagoo al-shabaab baa baadinaysiiya lacagga lama aadi karo hub ururintii arrinteedii weeraradii yani mas-uuliyiintii iyo siyaasiyiintii arrintii qalbi dhagax qarax aan noociisa hore loo arag 14 oktoobar iyo hadda maalmahan u dambeeyey ee dilalka jaamacadihii la isku dilayo jidadkii ay waxirnaayeenba ayaamahan wasaaradihii oo la weeraray xafiiskiina niisa oo la jabsaday marka su-aashaan ku weydiinaya waxa weeye seebay ahayd xaaladda xarunta nisa iyo say u shaqeeyaan iyo sababtii aad uga tagtay taliye ku-xigeennimadii hay-addaas soo dhowow cabdiwaxid waa mahadsan tahay marka hore oo ku salaamaya adigii daawadayaasha kulligiin meelba aad joogtaan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waa hay-ad loo sameeyey 3 ujeedo ujeedada koowaad waxay tahay inay keenaan xogaha iyo xuuraanka la xiriira amniga la xiriira dhaqaalaha la xiriira siyaasadda midda labaadna waxa weeye in ay la dagaalaan in horjoog iyo hormuud ka ahaadaan sidii loo jebin lahaa kooxda nabaddiidka ah ee al-shabaab iyo maxaan ku yidhahdaa nabadda guud maaragtay khatarta ku ah qarannimada iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed iyo midda saddexaad oo ah in ay noqoto hay-ad mas-uul ka ah dardargelinta la dagaalanka argagixisada soomaaliya meel walba ay ka joogaan iyadoo kaashanaysa garabna ka dhiganaysa waddamada saaxiibka la ah ee daneeya amniga guud ee geeska africa iyo la dagaalanka waxaan loo yaqaano global terror ama argagixisada caalamka marka ujeedadeeda waa 3daas ayaa loo sameeyey waxaad moodaa tan iyo markii xukunka uu la wareegay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo febraayo 8 sanadkii hore ee 2017 in la dareemay isbedelo dhanka amniga iyo sirdoonka ah waxaad xusuusataa in maaragtay la bedelay taliyihii hore aniga aan hoos iman jiray jenaraal cabdullaahi gaafow waxaa la bedelay taliyihii booliiska waxaa la bedelay taliyihii militariga iyo kii asluubta intaba bedelka loo bedelay ma ahayn mid shaqo la xiriirta waxay ahayd mid lagu qancinayo
shakhsiyaad iyo qabaa'ilo sideedana amni marnaba ma geli karo in qof iyo qabiil lagu qanciyo amnigu waa amni guud oo qaranka dhan maaragtay masaxadiisa ay ku jirto haddii markaa dadka jooga ee aad xukunka adiga ugu timid ugu yaraan waa inaad siisaa 6 bilood si howlihii socday ee sirdoonka howlihii socday ee la dagaalanka argagixisada howlihii socday ee maaragtay la xiriiray amniyaadka guud ee siyaasadda ay u nagaadaan kadib markaas waa samayn kartaa isbedel waa samayn kartaa laakiin mar alla marka lagu doortay iyadoo aanan la filayn in wax hal subax 4 taliye la bedelo xogaa waxay ila ekaatay degdeg ayaan ka dareemay xukuumaddii ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo hogaankii maxamed cabdullaahi farmaajo aniga ka shaqsi ahaan waxaan iscasilay 6 abril sanadkii 2017 ayaan istiqlaaladeeda u geeyay madaxweyne cabdullaahi farmaajo anoo markaas ka yaaban maaragtay degdegta meesha jirta ayaa haddana waxa igu qasabtay inaan iscasilo waxay ahayd markii xabsiga laga sii daayay madaxii kooxda daacish xasan ganey iyo ninkii isku qarxiyey xeebta liido oo isagoo nool aan qabanay gaarigiisa dhinac dambe uu ka qarxay dhinac horan uu ka qarxin ninka la dhahay Haaruun ayaa hal subax wax laga sii daayay xabsiga la yirina way fakadeen marka arintaas markii aan madaxda aan la wadaagnay aniga iyo madaxdii maxkamadda ciidamada waxna loo sheegay arintaas in la baaraayo markii aan arkay in baaritaan uu sameel u soconina dhowr jeer ayaan su'aalo ka keenay waxa iigu soo xigtay in madaxii sirdoonka ee al-shabaab zakariye oo ka soo goostay kooxda loo magacaabay madaxii sirdoonka ee nisa marka go'aanan ka qaatay inaan isaga tago aan iscasilo markaa waa tahay hadda arrimahan hadda eedeymahan aad sheegaysid waxa asna arrimo lamida ka hadlay cabdalla oo shaqadii yani laga qaaday walow adigu waa iscashay asaga waa la casilay waxaana la yiri xataa garaadihii baa laga rifay marka ma isleedahay waa arrimo isku mid ah hadda waxaan aad sheegaysid mise waa arrimo kala duwan wallahi cabdi waxay noqon karaan arrimo isku mid ah waxay noqon karaan arrimo kale waxaan ogahay cabdalla waxa uu ahaa ku-xigeenkii arrimaha sirdoonka waa nin aqoon buuxda u lahaa arrimaha sirdoonka muddo badan ka soo shaqeeyey xogta ugu badnayd ee hay'addana hayay haddii ay noqon lahayd sirdoonka qarsoon haddii ay noqon lahayd dadka lagu daba jiro haddii ay noqon lahayd maxaan ku idhahdaa xiriirka hay'adda iyo wadamada caalamka aan la leenahay xiriirka isdhaafsiga sirdoonka marka cabdalla in shaqada laga joojiyo xafiiskiisa la jabsado kombiyuutarada la qaato dokumentiyada la waxeeyo shaki badan ayay keentay kullu waxaan u maleynayaa isaga ka jawaabi kara sababta laakiin aniga waxaan isleeyahay dagaal baa lagula jiraa hay'adda nabad sugidda qaranka saasaan u qaata aniga ka shaqsi ahaan waa tahay dad badan waxay la yaaban yihiin ciidamadii nisa oo saa sheegaysa qololba tababar iyo 3 arrimood aad sheegtay baa loogu talagalay oo la leeyahay booliiskii baa lagu wareejiyey markaba laga soo tago taliyaashan tirada badan ee ciidamada qalabka sidoo dhan oo maalinba wax la bedelay iskaba dhaaf halkaas ka dhig laakiin ciidamadii nabad sugidda marxasilin la yiri haddana la leeyahay booliis baa lagu wareejiyey see marka arrimo noocaas u aragtaan arrimo noocaas adduunka saa ma u shaqaysaa hay'adaha sirdoonka cabdi waxay saan kuu sheegay waxaa socda mashruuc ka dhan ah hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka 2,000 oo ciidanka labisan ah oo loogu talagalay inay la dagaalaan argagixisada ahaa ciidankii lagu jiifanayay magaalada muqdisho joogay 54 isgoys ee magaalada muqdisho ay leedahay joogay ilaa iyo 6 checkpoint oo ah meelaha laga soo gala magaalada muqdisho in hal subax la yiraahdo waa la wareejiyay oo booliiska lagu wareejiyay meelihii ay joogeen ay ka soo tagaan waxay fursad siisay in kooxda nabadiidka ah ay si sahlan ku soo galaan magaalada muqdisho ficilada aad aragteenna ay ka geystaan dad ay dilaan ay duubaan marka aniga ka shaqsi ahaan waxaan u qaatay in la rabo hay'addan maadaama ay tahay cadowga kaliya ay lahaayeen kooxda shabaab in ayada la rabo in la baabi'iyo waa tahay saa sheegtay ciidamadaas markii la qaaday dowladdan hadda waxay sameeyeen jidadkii magaalada la wada xiray rabadaankii kaba soo qaad
qaraxyo October oo u noqon doona kii ahaa iska badaa laakiin dadkiisa sheegaysay ayagoo shaqadooda ku jira ayagoo dariiq maraya ayagoo baararkii fadhiya madaxa laga wada toogtay ilaa xataa xarumihii yani hadda saa sheegaysay arrimaha gudaha iyo tii amniga oto ku taallay la soo galo marka adigu markaad ahaydeen taliyaashii hore iyo caalamkaba say u arkaan say u aragtay marka arrintaas marka cabdi wax waa mahadsan tahay horta sideedaba siyaasad degan waxaa la yidhahdaa political stability ayaa waxay lafdhabar u tahay amni sida aan la wada soconno siyaasaddii waddanka waa isku dhex yaacday maamul goboleedyadii waxay xiriirka ka hakiyeen waxay hakiyeen xiriirka ay lahaayeen dowladda federaalka ah wada shaqayn iyo xog isdhaafsi iyo maxaan ku yidhahdaa wax ka dhexeeya dowlad goboleedyadii iyo federaalkii ma jiraan sida aan wada ognahay kooxda nabadiidka ee al-shabaab xooggooda ugu badan soomaaliya waxa ay joogaan gobolka shabeellaha hoose gobolka jubbada dhexe gobolka jubbada hoose iyo gedo intooda badan waxa inta badan qaraxyada aad aragtay ee laga geysto magaalada muqdisho laga soo abaabulaa laga soo rakibaa ama componentska waxyaabaha ay ka samaysan yihiin laga keenaa waa saddexdaas gobol marka in siyaasad degan aanay jirin waxay fududaysay in magaaladii muqdisho amnigeedii faraha uu ka baxo waa kow labo dowladda federaalka ah magaalada muqdisho waxaa ka saaran mas-uuliyad sababtoo ah waa meeshii ay deganeen dowladda waa meeshii ay joogeen wasaaradihii waa meeshii halbowlaha u ahayd waddanka oo dhan marka in ciidankii maxaan ku yidhahdaa sirdoonka ahaa ciidankii la dagaalanka argagixisada ahaa ee magaalada lagu joogay amnigeedani amni ilaah baa haya laakiin amniga maadaama inkastoo uu yahay mid guud oo dadka iyo maxaan ku yidhahdaa ka dhexeeya iyo dowladda haddana mas-uuliyadda waxaa iska leh wasaaradda amniga waxaa iska leh hay-adaha amniga qaabilsan booliiska nabad sugidda militariga intaas marka macno badan aniga way ii samayn weysay in hay-addii kaliya ahayd ee ay shabaabka la dagaalaysay oo xataa markii ay meel weeraraan ay meel qabsadaan ka saaraysay in la kala diro maalin cad waxay u eg tahay in ujeedo kale iyo macno kale meesha uu ku jiro laakiin waxay noqotaba way soo bixi doontaa hadduu alle intaana u gelin arrimo badan oo hadda ciidamada guud oo qalabkiisa la xiriira iyo gaar ahaan hay-adda nabad sugidda balse ahaa magaalada xamar markii adiga aad joogto taliya ku-xigeenka ahayd magaalada xamar magaalada nabdoon ay ahayd shacabka habeenkii 5 saac 6 saac 7 saac habeenimo aan ku arki jirnay iyagoo fadhiya biyutooyinka oo shaah iska cabaaya turb ciyaaraya taliyihii maxaan ku radaa janaal gaafo iyo aniga habeen u dhaaf habeen asaa bixi jiray habeen anaa bixi jiray waxaan samayn jirnay wax la yiraahdo roondo oo aan tagi jirnay suuqa xoolaha ilaa iyo ceelasha biyaha si aan maaragtay niyadana ugu dhisno ciidanka maaragtay dhaxanta iyo fadhiya ama biyo loo geeyo ama raashin loo geeyo ama maaragtay moralkooda kaligood aysan ahayn la tusiyo in maaragtay aysan soo jeedin oo lala soo jeedo magaalada muqdisho nabad bay ahayd magaaladana maaragtay nabadeeda meel dheer ma jirto magaalada waxay u baahan tahay kulle in tayo ciidan oo fiican way jirtaa laakiin taladii ayaa xumaatay marka taasaa keenaysa in ay maaragtay waxa maanta dhacaya ay dhacaan haddii la isku maaragtay barbar dhigo sidii ay ahayd 2016 iyo maanta magaalada muqdisho waxaad moodaa in 10 sano ay gadaal u noqoto magaalada muqdisho marka loo fiiriyo dhinaca amniga dadka soo xasuusteen 2009 2008 markii shabaab iyo dowladda ay ku dagaalamayeen gudaha magaalada muqdisho ma haysaa wax kaloo caddayna oo taageeraya inay xamar nabad ahayd sida beesha caalamku idiin qartay wax shirar lagu qabtay waxyaalo xoojinaya hadda eedamahaygan ma haysaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho bishii September 2016 shirkii madaxweynayaasha igad oo aad fiirin karto taariikh dib u baari karto si nabada ku dhacay waxa magaalada muqdisho lagu qabtay 8 Febraayo doorashadii madaxweynayaasha oo 22 qofood ay soo sharaxeen iyadoo aan hal maaragtay shay oo amni daraa aysan dhicin waxa lagu qabtay caleemasaarkii madaxweynaha Cabdullaahi Farmaajo oo ay ka soo qayb galeen ilaa iyo 4 madaxweyne marka magaalada muqdisho nabad bay ahayd haddaan nabad ahaan lahayn madaxdaas kuma soo dhiirateen
shir caalami ah oo igadna laguma qabtay magaalada muqdisho marka taasaa markhaati kaaga ah ma jireen waagiinii hadda waxaad arkaysaa lacago boorsooyin lagu wado leeyahay ciidamada la siinayaa sida kuwii militariga iyo kuwa nisaba marka lacagahan laga ordayo tirada badan waagiinii saasoo kale ma ahaayeen mise maya aniga ma arag anaga hay'adda aniga mas'uulka ka ahaa waxay ku shaqaynaysay miisaaniyadii loo qoondeeyey ee xukuumaddu u qoondeysay laga bixinayay mushaarka ciidanka iyo garaamka ciidanka labadaba laakiin boorsooyin lacag lagu wada anigu ma arag intaan joogay wax hadda socdana kole waxaan wada arkayno danta laga leeyahayna anaga ma naqaan lacagna sideeda markay kaash tahay traceable ma aha oo lacag la dabageli karaa meesha ku socoto waa la ogaan karaa meesha ka timid laakiin meesha ku socoto meesha ku dambaynayso cid ogaan karta ma laha taas waxaa ka sii daran cabdiwaaxid kooxda nabadiidka ee shabaab maanta waxay magaalada muqdisho ka qaadaan canshuuro aysan hore u qaadi jirin waxay zakawaadka ay qaadi jireen ka qaadaan dhammaan ganacsatadii marka hore joojisay kadib markii ay ku guulaysan waayeen inay haddii ay bixin waayaan maaragtay argoosi uu ku yimaado marka wax badan baa isdaba yaacsan wax badan baa isdiidan laakiin siday tahayba kolley un way soo bixi doontaa taariikhda un xusi doonta laakiin siday wax ku socdaan ma aha si qurux badan waxaana ficnaan lahayd sidaan hore u sheegay amniga waxaa asal u ah siyaasad degan haddaanan siyaasad degan la helinna amniga maanta faraha kasii baxay faraha ayuu kasii bixi doonaa waa tahay ciidamada nabad sugidda ma ahay waxaa kaloo jiray ciidamadii militariga ee xarintii gordon lagu tababari jiray ciidamo intaasoo 2,000 ku dhow oo yacni la kala diray ayagii hubkoodii meel ay mareen lama yaqaan markay isku dhaceen ciidamo kale marka adigu maadaama aad tahay nin ka soo shaqeeya amnigii waddankaaga mas-uul baa kaa saaran maxaad dadkii retaliation hore aad kaga hadashaan arrintan maxaa adduunka u tusteen maxaa sida wax ku socdeen maxaad maadaama madax tihiin waddankiina waa waddankiinii maxaad arrimaha ka qabateen xaggee wax la marteen ma fahmin su-aasha iigu celiyay cabdiwaxid ciidamo waxaa jiray sidoo kale militariya oo يعني xerada la yiraahdo gordon lagu tababari jiray oo meel ay mareen ayagii hubkoodiiba meel ay mareen ilaa hadda aan la garanayn iyo wixii loo kala diray marka dhibaatooyinkaas jira maadaama aad ka mid tahay taliyaashii yani nabad sugidda waddanku waddankaagi weeye hadda qurbihii baa joogtaa maxaad kaga tashateen maxaad toosh ku ufiseen maxaad uga hadli weydeen maxaad adduunka ugu bandhigi weydeen dadkan lacagahaas iyo dowladda oo yidhaahdaa abaan tababarnaa maxaa arrimaha ka qabateen marka cabdiwaxid waxaan u malaynayaa su-aashaas waa su-aal muhiima laakiin jawaabteeda ma aha mid maaragtay meel fagaaraha laga sheegi karo waajibka naga saaran ka mas-uul ahaan dad maadaama aan nahay mas-uuliyiin qaranka usoo shaqeeyey waxa socda iyo dhibta jirtana aan arkayno oo aan ka damqanayno waa jiraan wada hadallo waa jiraan maaragtay maxaan ku idhaha dad ay aan wada hadlayno way jiraan laakiin maaha waqtigeedii iyo fagaaraheedii maaha aan ka sheegi lahaa hadda daawadayaal waa showgii gaar haye oo idinkaga imaanaya istuudiyahayaga magaalada london waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulwaaxid cabdullaahi khaliif waxaa isku soo dabariday ustaad muxiyaddiin diiriye nuur wadani oo kanada jooga waxaa martinoo ah taliyihii hore nisa ismaaciil daahir cusmaan oo asagu saa hadda maqlayseen iska cashilay markii tuhun uu soo galay hay-adda iyo inay isku xiran yihiin iyo shabaabka gaar haya marka waa golahaas gacalka soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka ka joogaan u gudboon yihiin dowladda gudna kama qaadano gacan saara lama lihin mucaaradka cid gooni ana uma adeegno fikirka waa lagu kala gedsinaan karaa laakiin danta guud waa mid gooriya ayaan gabagabada hadalku waa sidii gujis allahu naxariista u lahaa aan ku garawne gaar hayow geyig ilaali ismaaciil eedeymahaas adiga keliya maahane cabdallana hadda wuxuus asagu sheegaya oo isna waa casuumi doonaa ayadoo saas jiraan xukuumaddii soomaaliya waxaa col ay la noqotay waxaad moodaa yani dadkii madaxda ahaa siyaasiyiinta la weerarayo hadda madaxweynihii hore xasan baa u dambeeyey oo taageerayaasha dowladdan way leeyihiin maxaa yani madaxweyne xasan keenay xamar muxuu xamar ugu soo noqday marka madaxweynuhu soo xildhibaan ma aha kow maxay dhiboo keenaysaa haddii madaxweynuhu uu gurigiisii iyo magaalo madaxdiisii ku soo noqday oo waxay leeyihiin asagaa qaswado ah oo dowladdii duminaya
halka la rabay inay dadka ishayaan ay diiradda saaraan. cabdi waa maasan tahay waa su'aal muhiima Soomaalidu waxay tiraahdaa ana oo yiri baa saac intiisa igu dhacday madaxweyne xasan sheekh waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka hoy ayuu ku leeyahay magaalada muqdisho waa muwaadin Soomaaliyeed madaxweyne ka soo noqday xaq ayuu u leeyahay inuu dalkiisa ku soo laabto laakiin in la siyaasadeeyo soo noqoshadiisa xoogaa waxay u eg tahay marmarsiyo iyo maxaan ku yiraahdaa hadal aan meelna gaari doonin marka intaasaan taas ka dhihi lahaa waa tahay hadda arrimahaagii adiga iyo Cabdalle iyo waxaad moodaa inay ina xoojiyeen xildhibaanadii qaranka oo waliba kuwii dhalinyarada ahaa caaw qaarkood aan wareysan doono ay soo socdaan ba arrimihiina xoojiyey marka ma istirahdeen dad nasiib badan baa tiin maadaama arrimaha aad sheegayseen hadda xildhibaanadiina ay la soo kala baxeen oo ay waxaad sheegayseen ay leeyihiin nabadii hadda ka sii dartay hadda ugu daran waliba ergeyga xataa gaarka ahaa يعني ergey gaarka ahaa ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay uu leeyahay xamar sidii aan ugu tagay bay noqotay wax isbedela ma leh marka dhinacaas nasiib ma ku leedihiin cabdi waxay horta waxa waaye waa mahadsantahay waa runta xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay arkeen waaqica jira waxay arkeen in amnigii faraha ka baxay oo aanay ahayn mid la qarin karo waxay arkeen isbedelo iyo ficilo aanan hore looga baran dadkii madaxweynayaashii iyo xukuumadihii hore dalka soo maray waxay arkeen in maalin cad shacabkii lagu laynayo magaalada muqdisho dhexdeeda waxay arkeen inaynan cadaalad jirin marka waxaad moodaa dadkii masaakiinta ahaa dugsanayay cadaaladda haddii ay waayaan cadaalad micnaheeda waxa waaye waxaanan jirin mas'uuliyiin mas'uul iska saaray maxaan ku yiraahdaa wixii loo doortay hadday noqon lahayd amni hadday noqon lahayd siyaasad magaalada muqdisho waxaa ka dhaca falal aad u foolxun waxaan aad uga xumaaday falkii laba maalin hor ka dhacay wiil guursaday gabar maxaad gabadheena u guursaday ma geysid loo dilay aabihiis waxay ahayd fal aanan maaragtay horay dalkaas aan hore uga dhicin kuma eedeynayo dowladda laakiin waxaan rajaynayaa in dadkii ka dambeeyey falkaas cadaaladda la hor keeno maaragtay wixii ay muteen maaragtay ay cadaaladda ay ka helaan mudankooda lagu marsiiyo marka mid kale oo aan aad ula yaabanahay waxa waaye markii aan kasoo tagayay magaalada muqdisho waxaa xabsiga dhexe ku xirnaa 17 dhagarqabe oo shabaab ahaa oo qirtay mid ka mid ahna uu qirtay 14 qarax oo magaalada muqdisho ka dhacday inuu asaga maaragtay mas'uul ka ahaa ama abaabulkeeda uu lahaa ay ku xukuman yihiin dil toogasho ah ilaa haddana ay xabsiga dhexe ay ku jiraan sida aan filayo ama aan rajaynayo oo aanan weli la qasaasin oo maaragtay toogashadii lagu xukumay aanan lagu fulin waa iyada naftarkeeda waxay dhiirigelin u tahay kooxda nabadiidka ah dadka lagu hayo xabsiga qarashka uu ku baxayo ma aha dad mudan waa dad qaba dhiig muslim waxay ahayd in jirka la geeyo maaragtay xukunkii lagu xukumayna lagu fuliyo marka waxaan rajaynayaa taasna inay sida ugu dhaqsaha badan loo samayn doono waa tahay maadaama aad ahaydeen ka mid ahayd madaxdii hore ee nisa waxaasoo dhiba hadda waddanka ka dhacay aan caawa tirinaynay oo xataa mid mid haddii loogu istaago waraysiyaal badan laga samayn karo marka dowladdu tala ma idiin soo raadsatay oo ma yidhaahdeen xaaladdu farahay ka baxdaye kaalaya nala tasha oo hadda waa adiga arkayo dee ramadaankii iyo dadkii taraafikadii dariiqa taagan madaxa laga tooganayo iskuulkii jaamacadihii hadda fasalka dhexdiisii ardadii ujeeda la isdilayo marka wax tala ah mayna ku yimaadeen dowladdu maya cabdi waaxid ma arag aniga wax tala na soo weydiiyeen dowladda ma arag waxaan kaloo rabaa anoo ka faa'iidaysanaya fursadda marka hore inaan tacsi u diro qoyskii iyo carruurtii ay ka geeriyootay aamine xasan xuseen oo lagu dilay jaamacadda ay dhiganaysa kalaaska dhexdeeda iyadoo fadhisa lagu dilay raggii dilayna ay si nabada uga baxeen halkii ay kasoo galeen jaamacadda ayadana waxaan tacsiyaan u dirayaa waxay ahayd gabar qarankeeda u shaqaysay mas-uul ahayd waanan ka xumahay in maaragtay iyada oo sanadkii ugu dambeeyay jaamacadda ku jirta kuliyadda sharciyada baranaysay kalaaskeeda lagu dhex dilo dadka dilayna si nabad ah ay uga baxaan jaamacadda dhexdeeda waa arrin aad iyo aad aniga shakhsi ahaan ii taabatay aamina waxay ahayd qof aan aqoon fiican u leeyahay
marka anoo ka faa'iidaysan fursaddan waxaan tacsi u dirayaa carruurteeda iyo ehelkeeda inuu ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo haddii aan go ahead cabdiwaxid marka maadaama aad la shaqaynaysay madaxweynihii hore hay-adaha sirdoonka uu amniga waddanka muhiim goonihi u leeyahay waana madaxda badana wax isku haysa maamul gobollada inkastoo labadii sano hore la yidhaahdo iskumaydan fiicnayn laakiin labadii sano dambe aad bay dowladda xasan sheikh u dhistay oo u habaysay haddeertaan galmudug waxay leeyihiin yani waxay soo saareen war murtiyeed ay leeyihiin hawada twitterka iyo social mediahan ka maqalnay iyadoo villa soomaaliya leedahay madaxweynaha wuxuu leeyahay sidii waagi hore oo kale 18 oo kale haddana mar kale 24 bisha galmudug ha timaado xamar madaxdeeda lagu heshiisiyo ayaguna waxay leeyihiin khilaafba hadda ma jiro lagu kala bax meeshii oo xildhibaanadoodii baa la wareegay arrintii iyo marka dowladdu faraha hanagala baxdo marka maadaama aad labadii sano u dambeysay xukuumaddiinii aad hore aad hawshaas yani isu keenayseen dowlad goboleedka see hadda u aragtaa marka waxaan sii kala firdhay iyo dadkaan sii kala fogaaday cabdiwaxid waa mahadsan tahay horta niyo waa runta sideedaba siyaasadda arrimaha gudaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda waa muhiim si qaran uu u dhismo hadafkii iyo ujeedkii la lahaa dalkaas uu lahaana uu u hirgalo siyaasaddii arrimaha gudaha waxa sidaad aragto waxay farahay ka baxday sidii amniga uu faraha uga baxay ay faraha uga baxday midda la yaab kala waxay tahay in aqalka sare oo dadka ku matala dowlad goboleedyada dowladda federaalka iyagu isxiqaamay baxay tagay galmudug iyo jubbaland iyo puntland iyo maxaan ku yidhahdaa meesha la yidhaahdo south west ama koonfur galbeed iyaga oo wada hadallo iyo wada xaajood ku jira in baraha bulshada fartiin la dhigo oo la yidhaahdo galmudug waxaan idinku amraynaa inaad timaadaan si aan idin heshiisiino waxay ahayd hadal aad yaab u leh waxay ahayd in mudnaan la siiyo maxaan ku yidhahdaa senataradaas galmudug jooga oo wada xaajoodka ku jira oo la hadlaaya la xaajoonaya labada dhinac rabay inay isku soo dhaweeyaan markay taas isku soo dhaweeyaan kadib maaragtay wixii la samayn lahaa dowladda federaalka iyo ayaga dhexdooda ay u kala dab qaadaan ayagoo hawsha ku jira in baraha bulshada fartiin loo dhigo la yidhahdo soo gala oo wada hadlaynaa xoogaa waxay ahayd hadal aan laga fiirsan taasaana keentay haddana maaragtay ujeedkii aqalka sare inuu meeshaas ku baaba'o madaxda dowladda federaalka waxa la gudboon inay ayaga fadhigooda ugu tagaan madax dowlad goboleedyada sababtoo waa dadkii adiga aad xukumaysay intii ay dad kale hoos tagi lahaayeen adiga dulqaad muuji adiga bax adiga u tag adiga keen adiga la fadhiiso la xaajood maxaan ku yidhahdaa waxay rabaan dhegeyso waxaad qaban karta qabo wixii aadan qaban karin waxay tiraa waa ugu adag tahay maxaan ku yidhahdaa arrin a iyo b c way ugu adag tahay laakiin a iyo b waa samaynayna si aan isaga nimaado dulqaad ayay u baahan tahay hoggaanka wuxuu u baahan yahay dulqaad qofka hoggaanka loo dooranayo ama dad raba inuu hoggaamiyo waa inuu yahay shakhsi dulqaad u leh dadka uu hoggaaminayo laakiin haddii aad qofkii kusoo agmaraba aad ka xanaaqdo ama aad furka tuurato haddii cid aad hoggaaminaysa mala sababtoo adigii ahayd in lagugu daysado oo aad example noqotid haddii aad noqotid nin iska caroonayo hadda dadkana way caroonayaan waxa aad arkaysa maamul goboleedyada qalad ma laha dembina ma laha maamul goboleedyada dhowr jeer baa ballan lala galay ballamadii lala galayna lagama bixin haddii laga baxayna wax macquula ay ku qancaan oo looga baxay looma sheegin marka madaxweyne xasan sheekh waxa uu hoggaankii hore soo maray soomaaliya uu kaga duwanaa waxay ahayd nin aad u dulqaad badan waa u tagaayey waa la fadhiisanayay marmarka qaarkood wuxuusan raalli ka inuu ka aqbalayo si geedi socodka dowladnimo ay hore uga socoto sababtoo tiisa asaga rabitaankiisa waxaa kala weyneyd rabitaanka in ay wax hagaagaan ay wax dhismaan oo hore loo socdo laakiin hadda waxaad moodaa maxaan ku yidhahdaa maamahdii gaalada ahayd it's my way or the highway ama taydaa soconaysa ama wax soconaya ma laha dal laguma hoggaamin karo dalna laguma dhaqi karo marka madaxweyne maxamed farmaajo dib ha isugu noqdo weli fursad ayuu haystaa ha dhegaysto waxa ay tabanayaan dowlad goboleedyada ha la fadhiisto ha yidhaahdo waxaad rabtaan miiska soo saara waxaan rabana waa kana ha la wada hadlo ha la wada xaajoodo waxay rabaanna wax ka qabo adiga waxaa rabtaan waxaan waa hubaa inay wax ka qabanayaan sababtoo soomaalidu waxay tiraahdaa gacmo isdhaafaa gacal ku jira laakiin gacmo kala tagay waa kala tageen marka madaxweynaha waxaa laga rabaa dulqaad inuu muujiyo siyaasadeed
waxaa laga rabaa deganaana laga rabaa waxaa laga rabaa inuu joojiyo fudeedka tirada badan teeda kale baraha bulshada ee social media dal laguma xukumi karo dal waxaa lagu xukumaa siyaasad waxaa lagu xukumaa hoggaan maxaan ku yidhaha furfuran waxaa lagu xukumaa weji furan Soomaalidu waxay tiraahdaa irid furan lama gala ee weji furanaa la gala marka madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu isfurfuro asaga marka hore ogaado waxa dadka uu hogaaminayo iyo hoggaanka naftigiisa in shirka lagu yahay lala leeyahay uusan kaligiis lahayn ama koox aysan gaar u lahayn madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu ogaado Soomaaliya inay Soomaali leedahay Soomaaliya inaanay koox lahayn koox walba haddii waddanka uu maaragtay uu yahay mashruuc ama uu yahay shirkad dad gaar u leeyihiin waxbay ahaan leed waa la garan karaa laakiin waddanka waddan ay Soomaali ka dhaxeeyo waay hoggaanka waa inuu noqdaa mid Soomaali oo dhan ka dhaxeeya mid asaga gaar u leeyahay ma aha waa mid la leeyahay waxaan looga baahan yahay inuu muujiyo maxaan ku dulqaad badan uu tusiyo dadka uu rabo inuu hogaamiyo waa tahay daawadayaal waa showgi gaar haye oo idinkaga imaanaya stuudiyahayaga magaalada London waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulwaaxid Cabdullaahi Khaliif waxaa isku soo dabariday ustaad Muxiyadiin Diiriye Nuur Wadani oo Kanada jooga waxaa marti noo ah taliyihii hore ee NISA Ismaaciil Daahir Usmaan oon ka wareysanayno arrimahan ugu dambeeyey ee nabadgelyada xumada ka jirta guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan gobolka Banaadir xildhibaanadii baan ku raacay arrintaas oo hadda ayagii yani soo istaagay oo leh xaaladdu meeshii ugu darreyd bay hadda maraysaa waxaan joognaa qaybihii u dambeeyey ee barnaamijka caawa saacadda Afrikada bari markay tahay 11:15 waxaa noo marti ah xildhibaan Maxamed Xasan Idris Geney oo ahaa kamid ah xildhibaanadii maalinteeda weyd arrimihii looga hadlay doodii ku saabsanayd yani nabadgelyo xumada ka jirta gobolka Banaadir ugu horeeyay ee ka hadlay ninkii dhalinyarada ahaa caawa noo martay waqtigaas markaasna UK waqtiga saacadeedu waa 9:15 Yurubta dhexe waa 10:15 Minnesota kale iyo Texas kale ayadu waxaad moodaa waqtigaas waxa weeyaan 3:15 Ismaaciil hadda meesha jooga Ohio iyo Ontario Canada ayaguna waa markaas waxa weeyaan saacadu yani 4:15 meelahaas weeye California oo kalena ayagu waxaad moodaa inay tahay 1:15 marka isgaarsiiya xildhibaan Maxamed Xasan Idris Geney baa soo balansan caawa saacadu markay tahay geeska Afrika 11:15 habeenimo Ismaaciil adigu qoliyaha hadda mucaaradka lagu tirin karaa waxaan malaynayaa inaad ka qoslaysaan goos dambeedka marka magacii dawladda quruxda badnaa ee nabad iyo nolol waxaad moodaa inuu tafaa'ul yahay oo lama deegaanka oo kale baa waxaa la yiraahdaa mavaza waa dhulka bahgooyada ah magacu waa magac qurux badan oo badbaado ah laakiin yani carabii hore magacaas waa diideen qofka dhimanayana carabtu waxay oran jireen sakaraadka ah oo godka qarka u saaran saliim bay oran jireen marka dad badan baa hadda saaqaba magacaan nabad iyo nolol waa iska tafaa'ul oo xildhibaanadii iyo adiga hadda waxaad qiraysaan inay xaaladdu hadda marayso meeshii ugu liitay marka su'aalahaas ma loo soo qaadan karaa cabdi waxaad waa maasan tahay horta anigu siyaasi maahi siyaasadana qofka siyaasiga mucaarad noqda aniga mucaarad maahi laakiin waxay dhibaya inaan ka hadlo waa waajib isaaran ka Soomaali ahaan dawladda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa run waxay halhays ka dhigteen nabad iyo nolol waa erayo laakiin ficilkeedii ayaa laga rabaa inay la yimaadaan oo ay dadka tusaan nabadina tusaan noloshina tusaan markaasaa la dhihi karaa waa dawladdii nabad iyo nolol marka uun hadal nin iska yiri maaragtay nabadna ma keenayo nololna ma keenayso laakiin ficil ayaa laga rabaa dawladda ra'iisul wasaarahan waxaa laga rabaa in uu siyaasadii amniga nabadda ay ku imaan lahayd inuu maaragtay la yimaado uu hirgeliyo iyo siyaasadii shaqo abuurka iyo dhaqaalaha iyo kobcinta maxaan ku dhahay dhaqaalaha inuu la yimaado tan iyo markii ay xukun qabteen dhaqaalihii hoos ayuu u dhacay canshuurtii gobolka Banaadir u soo xaroonaysa dakhli u soo xaroonay hoos ayuu u dhacay dekada dakhligii ka soo galayay alaabaha laga keeno maaragtay banaanada Dubai iyo meelahaas naftigeeda hoos ayuu u dhaceen 30% sida ugu maqaala ah waxaa kordhay dhaqaalihii iyo canshuurtii ay qaadayeen shabaab ee Muqdisho ka qaadayeen kor ayuu aaday marka waxa la rabaa inay dib isugu laabtaan oo ay fiiriyaan sida ay meesha ay markay yimaadeen meesha ay ka bilaabeen
maanta meesha ay wax marayaan laakiin in dadka lagu maaweeliyo nabad iyo nolol iyo maxaan ku yiraahdaa deymaana laga cafina oo waxba ka jirin iyo deymaha IMF-ta oo Soomaaliya lagu leeyahay 10 sano oo soo socda na laga macfin doono sababtoo ah processka ay qaadanaysa ayaaba ah wax loogu talagalay inaan deyn kala sii galno oo maaragtay ayay rabaan oo wixii lagu lahaa wax ka badan maaragtay dalkii caruurtana naga dhaxlaan marka intaan lagu mashquulin IMF deyn naga dhaafayso iyo lacag baan maxaan ku yiraahdaa aniga aan soo daabacaya iyo waxa laga rabaa nabadii iyo noloshii ay halhaysta ka dhigteen oo ficil ayaa laga rabaa dawladda iyo maxaan ku yiraahdaa xukuumadda labadaba waa tahay waxaan soo qaadanaynaa su'aal aad u muhiim ah oo qaybaha dambe barnaamijka aan xoog ku saarayno waxaa su'aasha soo qoray daawadayaasha mid ka mid ah Cabdi Cali weeye wuxuuna leeyahay waa in al-shabaab laga ballan qaadaa in dalka la wadaagi doonaan waayo waa Soomaali meel looga maarma ma jiraan arrintaasaan xoojinayna hadda waxa weeye arrintan hadda sida muuqata dad badan oo Cabdallana ku jiro adigana hadda aad tuhun ka muujisay waxaa leeyahay dowladdan iyo niisa iyo shabaab xiriir fiican baa ka dhaxeeya oo dadka qaar waxay leeyihiin laba maskiin oo indhala oo Baghdad ka tuugtan jiray baa jira bari oo yani midna wuxuu ku tawasuli jiray umawiyiinta markaasaa waqtigu umawiyiinta ahayd lacag baa lagu siin jiray saas midna wuxuu ku tawasuli jiray yani ahlul baytka iyo cali iyo radiyallahu anhu lacag baa lagu siin jiray qorraxdu markay dhacday intay u yimaadaan bay lacagtooda qaybsan jireen marka hadda tuunkaas anagu ma caddayn karno laakiin hadduuba jiro waxaad moodaa waxaan anagu leenahay qarwal halkii baa soo dhawaaday marka haddiiba madaxdii dowladda iyo niisa iyo shabaab isku fiican yihiin waxaan shaki ku jirin anna markaati ka noqonaysaa stakeholders waxa la yiraahdo Soomaaliya shisheeyahaas hadda dowladda gacanta ku haya shabaabku waa number 2 ama 1 maamul goboleedka hadda ka sheekaynaysay marka waxa weeye halkii waa wadhow yahay marka dowladdu hadday isku fiican yihiin may shabaabka ugu yeeraan yani wada hadal iyo xabad joojin oo arrinta marka halkaas laga miiso عاد واحد مد ومهم إن الأوجادو كوحدة شباب وكوح وضعت ideology عن سياسات أهين بل سأه مد دين لقو مرن هبابين عيادات كمسلمين أنت مسلم فهمني ideology أما فكرة ده أي كود دجالمان معها مد سياسات ومد دين لقو مر هبابين عيو شعب كمسلم كأه الصوماليين شباب وحكود جرا madaxdooda dhaqaalaha ay ka helaan waa shisheeye ujeedkooduna ma aha in dalka ay la wareegaan oo ay dalka xukumaan ma waa og yihiin inaanay dal xukumi karin laakiin ujeedooyinka laga leeyahay sida tuunka uu qabo waxa waaye in wadamo kale oo shisheeye ah ay gacan saar la leeyihiin oo ay maalgeliyaan maxaan ku yiraahdaa shabaab waxa aad loogu xantaa dowladda Qatar waxa kale lagu xantaa oo lagu xaman jiray hadii ay wali wadaan iyo hadii kala ma aqaano dhowr jeer oo reportiyada ay ka soo baxay maaragtay hay'adda cunaqabateynta Soomaaliya Eritrea dowladda Eritrea oo siin jirtay hub iyo dhaqaale qadarna ay ahayd wadanka ay u soo marsiin jireen maxaan ku rahaa shabaabka dhaqaalaha iyo hubka u soo marsiin jireen maadaama hadda Eritrea iyo qadar ay kala tageen geopoliticska ama siyaasad juqraafiyeedka geeska Afrika ka socda awgeed waxaan ognahay in maanta Soomaaliya ay xiriir dhow la leedahay dowladda Eritrea oo aan xiriir la lahayn jirin dowladihii hore ee ka horeeyay dowladda hadda jirta waxaan kaloo dareemaynaa in kooxdii shabaab tuunkeedii uu sii badanayo in hay'addii niisa ay si dadban ula wareegayaan hadda halkayga si fiican u dhegeyso marka kolley tuhun badan baa jira xaqiiqda waxay tahay ilaah uun baa og laakiin tuhunka aad u badan yahay Eritrea sirdoonkoodii waxaan marqaati ka ahay oo aan ogahay inay maanta joogaan Muqdisho hay'adda niisan ay dhex joogaan qaar ka mid ah sirdoonka Eritrea oo loo keenay inay tababar doonaan ciidama maaragtay ay lahaan doonaan hay'adda niisa marka shakiga waa badan yahay laakiin wixii jiraba kolley way soo bixi doonaan waa tahay gabagabadii ma hadda joognaa hadda hay'addii taliye xogeenka hadda Cabdullo kale waa meesha waa laga qaaday waliba si qaab daran baa la yiri yani garaadii baa laga rifay hadda fahad oo kale hadda taliye xogeena
marka su'aasha u dambaysaan ku siinayna marka soo aragtaan marka mustaqbalkan nisa iyo nabad sugidda guud ahaan iyo amniga waddanka iyo isku soo dhowaanta dowladda iyo dhexe iyo dowlad goboleedka iyo weliba arrintii dib heshiisiinta ee Soomaaliya oo dhan camaamisay horta waxaan aad uga xumahay falka foolxumada leh ee loo geystay saaxiibkay Cabdalla saan hor u sheegay wuxuu ahaa aqoon-yahan khibrad fiican u leh sirdoonka Soomaaliya waxaan uu ahaa waxaan la yiraahdo institutional memory ama ninka hayay xogta rasmiga ah ee sirdoonka Soomaaliya Cabdalla waa loo gafay guddi shibil ah oo aan ciidan ahayn oo la magacaabay recommendation kama bixin karaan in Cabdalla garaadadii jarnaalnimo laga qaado Cabdalla waxaa garaadada ka xayuubin kara marka dambi faldambiyad lagu soo eedeeyo lagu cadeeyo maxkamadda ciidamada qalabka sida Cabdalla maxkamad lama keenin dambi oo galay oo aan ognahay oo naloo soo bandhigay maanan arag dambi lagu cadeeyena maanan arag marka aniga buugayga Cabdalla wili waa generaal Cabdalla si sharci darro ah loogama qaadi karo garaadada uu leeyahay ninkaas odayga ah ee uu shaqaystay waxayna ahayd maaragtay fal aad u foolxun oo aan cambaaraynayo ka shaqsi ahaan aniga haddii aan kusoo noqdo su'aashaadii kolley cabdiwaaxidow wax walba wax meel bay ka bilowdaan meel bayna ku dhamaadaan Soomaaliya dhib badan baa soo maray Soomaaliya dagaal sokeeyay soo martay Soomaaliya maxaan ku dhahdaa qabqablayaal oo wixii la dhihi jiray warlords ay soo martay maxkamadayntii baa timid transitional baa yimid mid kalaa timid mid bay u soo dhiibtay waa markii ugu horreysay oo maaragtay mar walba ay doorasho dhacdo meel baa la keeni jiray meel baa laga sii qaadi jiray laakiin waa markii ugu horreysay aanay arko in doorasho ay dhacdo oo meeshii shalay aan joogna meel ka sii hooseysa maanta aan joogno laakiin waxaan rajaynayaa maaragtay rajada lagama quusto ilaahay baa og wixii dhici doona laakiin waxaan u rajaynayaa dadka masaakiinta ee shacabka Soomaaliyeed inuu ilaahay dhibka ka kor qaadi doono iyo dadka dhibka ku haya intaba amiin amiin daawadayaal kaasi waa taliye ku-xigeenkii hore ee nisa Ismaaciil Daahir Cusmaan oo caaw marti u ahaa gaarhaye ow saan idiin sheegnay caaw waxaa noo soo socdaa waraysi kale oo aan la leenahay xildhibaanka da'da yar Maxamed Xasan Idris Geney oo ka mid ahaa xildhibaanadii maalmihii dhaweyd ka doodayay amniga gobolka Banaadir waliba ninkii ugu horreeyay ka hadlay buu ahaa oo maalmihii dhaweyd saxaafaddu ay ku wada hadlaysay maadaama arrinta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir ay meel xasaasi marayso baanu rabnaa inaan idiin soo badino dadka mas'uuliyiinta nabadgelyada qaabilsan iyo xildhibaanadii loo doortay inay dawladda ku hayaan oo ay hubiyaan meesha talaabada dhigayso marka gaar haye waa golahaas gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka joogaan u gudboon yihiin dawladda gudna kama qaadano gacan saarna mucaaradka lama lihin cid gooniyahana uma adeegno fikirka waa lagu kala gedsanaan karaa laakiin danta guud waa mid goorya ayaan gabagabada hadalku waa sidii gujiis Allah u naxariistay u lahaa aan ku garownay gaar haye ugayiga ilaali waxa noo haray aan ka ahayn inaan u mahad celino martideena taliye ku-xigeenkii hore Ismaaciil Daahir Cusmaan iyo adinka waxaan idin leenahay jazaakumullahu khayran wa salaamu calaykum wa rahmatullah ilaa barnaamijka caawa ee dambe waxaan idin ka tegaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh